isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin kaadkaaga codaynta dooro xilkiya dowladaha hoose kaadkaaga codaynta dooro xilkiya dowladaha hoose wakiilka dooranayso dalkaaga dadkaaga dadkii wax tarayay geyso isdiiwaangeli muwaadin kaadkaaga codaynta dooro xilkiya dowladaha hoose kaadkaaga codaynta dooro xilkiya dowladaha hoose wakiilka dooranayso dalkaaga dadkaaga dadkii wax tarayay geyso isdiiwaangeli muwaadin daryeelkii horumarkeena danteennu inay hagaagto ciddii aynu dooranayno dadaalkeenna ku xidhane isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin daryeelkii horumarkeena danteennu inay hagaagto ciddii aynu dooranayno dadaalkeenna ku xidhane isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin middaacada baa rabnaa shuruuc dajiyaan rabnaa xashiishkiya daasadaha dudada ka guraan rabnaa xashiishkiya daasadaha dudada ka guraan rabnaa hebeliska dolomaaye dariiqna dhisan rabnaa isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin middaacada baa rabnaa shuruuc dajiyaan rabnaa xashiishkiya daasadaha dudada ka guraan rabnaa xashiishkiya daasadaha dudada ka guraan rabnaa hebeliska dolomaaye gurigan aynu joognaa waa kii komishanka kombyuutarku yaallee kaararka deegaanka ay hawshii ay uga socotay saddexdii cisho si fiican bay inamadaasi noogu shaqaynayeen birreemaanna gaadhna way soo socotaa waxaanu u sheegaynaa xildhibaan ibraahim iyo inamada la socda dhammaan inamadaasi sidii deegaanku xaq wuxuu lahaa si fiican bay wax ugu qabteen dadkuna si fiican buu u qaatay hawshan way noo socotaa xildhibaan ibraahim iyo wafdigan la socda dhammaan waynu soo dhaweynaynaa hawshii waa la qaadanayaa hawshii wafdigii odayaasha sugayey ee halkan guddigii iyo maamulkiina ayagana magaaladay joogaan waa is arkaysaan waanu soo dhaweynaynaa waanu u mahadnaqaynaa inamada boqolkiiba boqol محمد إسماعيل أحمد إسماعيل بنجدا قدوميها تولده إنه كم هذا الشيء تشغله كوميشنكا لكن جوجا وصدق إيش هو الشيء توانجلين تكوري سوبرفايزر كبوبتا ولا إلى هذا علي إنما ذا كله هو إنما يعني إذا ما ذا وحشيء يقول أتا ذاتك الدجاجة توانجلين تن أس توانجلين لسان waxay ka turjumaysaa inaad tihiin muwaadiniin dadka Soomaaliland kamid ah qofku muwaadin wuxuu ku yahay inuu dalkiisa wuxuu baahayna karto waxa isagu dalka uga baahayna karto dalku wuxuu kaaga baahan yahay inaad u doorato hoggaan shantii sano mar golayaashiisa haddii baarlamaan tahay haddii deegaan tahay haddii tahay madaxtooyo musharaxiinta tartamaysa kuwa deegaankiina codkaasi sanba kula xisaabtamaysa waxweeyaan waxyaalaha diiwaangelimaha marka dadkeena loogu wacyigelinayo diiwaangelin dadku loo wacyigeliya waxweeyaan doorashooyinkeena waxay noqdeen kuwo kala fog
haddii doorashooyinku noqdaan kuwa joogto u dhaca shantii sanaba mar wax la dooranayo si toosa dadku waxay garan lahaayeen ahmiyadda xilkay qofkay u codeynayaan ay u dhiibanayaan uu leeyahay waxay garan lahaayeen codkooda ay bixinayaanna waxay ku bixinayaan waxay noqon lahayd haddii doorashooyinka inoo joogtoobaan oo aqoonta dadka sare loo qaado iyo doorashadu waxay tahay inay qofka kula xisaabtamaan barnaamij iyo fikir iyo aqoon iyo baahidooda inay yidhahdaan maxaa baahideeda ka qabanaysaa maxaa garanaysaa baahideeda ka og tahay oo deetana qofkaad doorateen uu ku soo noqdo sanadkiiba mar golayaasha u dooranaysa hadday deegaan tahay hadday baarlamaan tahay uu maaragtay si toosaydi ku matalo uu baahidiina geeyo dalku wuxuu leeyahay miisaaniyad qaran waxa uu leeyahay barnaamij qaran horumarka waddankaa soconaya nabadgeedun maaha horumarka tacliinta waxbarashada wadooyinka leyrhka hadda imika nimada commission waxay isticmaalayaan mashiin iyagu loo keenay soo maaha dee inaa yani waxyaalaha xaqa u leedin bay ka mid tahay marka kaarka fahamtaan ee qaadataanna aad oran kartaan ciddaad dooranaysaan waxaama nooga keenaysaa dawladda waxaa laga yaabaa dawladdan inay cashuur bixiso inta doonto hal ekaato ama baabuurta idiimanaysa ha noqoto neefkiina xoolaha ha noqdo dhuxul yaroo meelahan laga sameeyo ha noqoto subaga iibinaysaan ha noqoto haragiina ha noqoto idinka laftigiina baabuurkana raacaysaan noolka bixinaysaan dawladda cashuur bay ka qaadaa wadda marisa laakiin idinka laamiyada ma soo maro wadda rafuu mara samar gala laakiin cashuurta xaq baa loogu leeyahay bixiyo adigoo markaa gaarigaas lacagta cashuurta iskaga bixinaya adiga lagaa qaadayo oo neefkaaga xoolaha halkan ku dhaqday markaad seelada geyso lagaa daabaqadinayo digadii lagaa qaadayo marka inaad diiwaangelinta markaad qaadatid barnaamijka noocaas kala fahamtid baa muhiima marka doorashada weyne madaxweyne la gelayana xisbiyada siyaasaddu markay loolamayaan waxay ku loolamaan deegaanka intee cod taala haddii degmada sawanaag la yidhahdo 60 kun oo cod baa yaala nin kastoo madaxweyne doonaya xurtiina imanaya waad ku gogortamaysaa baahidina sheegaysaa hadday biyo tahay hadday caafimaad tahay ka xoolihiina ka naftiina ka wax kasta laakiin haddaynaan kaarba qaadanin oo dadku kaarba qaadanin waxay noqonaysaa ma haddee meesha dad kuma noola waa dhul aan cid ku noolan baad noqonaysaa idinku waad jirtaan laakiin dee waddankii iyo qarankii uma diiwaan gashanin waanaan idiin sheegayaa kama dambaysa somaliland 30 sannadood halkii ugu gudbaysaa waxa weeye waa tartan nolosha tacliinta ganacsiga siyaasadda waxaasaa loo gudbaya marka waxaan ku dhiirigelinayaa kaararkiina inay ilaashataan marka la idin keeno kaararka ilaashada hasiisanina nolol maalmeed waxaad nolol maalmeedka ka sheekanaya waxa weeye maalinta doorasho la gelayo kaarkaagii oo meeshaad u codeynayso aada ugu magaranaysaa fiirso because waxa weeyaan waxaad dooranaysaa aduu qof weyn baad u tahay maxamed oo kale ilmahaaga dashay mustaqbalkiisa weyn haddaad geyso nin iska dabcan isagu iska noolaado aad geysan meel adunba wax siiyay dee ilmahaaga mustaqbalkiisa iibsatay ana waxaan leeyahay guud ahaantiin dadka deegaanka iyo deegaanada kaleba doorashooyinka soo socda aad ha loogu fiirsado talada dalkan lagu qabanayaa deegaanka dadka kuu matalaya waxay noqonayaan dad adiga aan ummadana cadaaladtare ku sameyn adigana aan xaqaagii ka aamusin bay noqonayaan marka aad baa idinku mahadnaqayaa saa wada shaqaysan dhammaantiin ana waxaan ku faraxsanayaa mar laba halkan ku yimaado kaarkana ka qaato iskana diiwaangeliyo insha allah doorasho halkan baan ka codeynaya bismillah insha allah dadku wuu oomay biyo ma jiraan imika dayr baynu ku jirnay jiidaa lama gaarin haddana waa la biidhaasaa waa booyad baa la dhaasaa wixii imika la cabayay ee dadka cabaya ama marti ha noqdeen ama degaani waa booyad taana wixii taagaaga ah inaad wax nagala qabato oo deegaan ahaan wax kaga qabato waa jecela qodobka saddexaad waxbarashada halkan malcaamadiineed baa ah maadi laguma dhigo iskuul ma lihin magaranaysa xanaano ma lihin marcaamadda waxaa filaya xildhibaan inaad aragtay waa qoryo iyo waa taa lafteeda dee ninkii ilaahay garanaya reerkiina wax ka qabto waa jecela doorashana in badan baynu kusoo jirno nin waliba maalinta cod doonayo anaa wax qabanayo uuna yidhaa waxaanu ogaanay ninkaasi inuu reerka ama ahaado ama si caqaar ha ahaadee inuu maalintaa un cod doonayo o aan dib ciddi soo eegi taasina wax la ogaaday oo imika cid waliba fahamsan tahay ayaa horta noqotay xildhibaan annagu waxaanu nahay degaan kafaara qabiil
iyo reer hebelnimo waanu ka tashanay waxaan nidhi kol haddaynu deegaan nahay wixii danaheena wax daboolaya ee wax ka qaban kara awooddooda aynu inaguna wax la qabsano وجينا كفار قبيل كل شقين سببت هذه قبيل انتقاك عد كستوي يعني مثلا هذه إن قاصين يربط النبو قاي وحين هكذا بيكون النولي ثانا وحن قاين كجان وقدوميون ودينوبيه تيجان كنا حل كنوجو دي بهتان ما ملك تيجان كان هاي جديدة إن عنو نكد إن ملعامة ملعام الدينية ده يبي دانكا iyo suuriyada maanta socota wax ka qabta inaan anagu noo sari taagnayno wixii aan dhaafin odayaasha raacin doona horta abti arrimaha uu odagaa hore ka warramay ayuunba aanu la qabnaa kuna fadhinaa meesha xildhibaanka aynu u sheegnana aanu istusno baahiyaha hadday malcaamadaatay hadday biyalaan qaymaka socdatay hadday hawsha culayskaa nasaarane dee xildhibaanadii lahaa hawshaase anagu codka doolmeyla xildhibaanada codkan lahoo u socda cidna tidhi waa bal warramana adiga koortu maanaan arag maanad ku mahadsanta waxaanu se doonaynaa inaynu wada shaqayno in hawsha halkaa inaan kaga hadhine wixii dee waa gurigaagii waa deegaankaagii wixii aanu baahida aanu kuu sheegnay aad wax nagala qabato maxaad ka tari karta kow waxa weeyaan horta sidaa ay inamadu u sheegeen deegaanku horta waa deegaan ballaaran waanu tashaday wuxuu isku raacay ninkii wax inoo qabanaya inaynu maanta waxinana u qabanno hadalkeega waxba lama badiyo dina waa soconaysaa dee warkuna dee in laysu soo gaagaabiyaa weeye oo kiisa muhiimka un dee la raaco waxa weeyaan deegaanku wuxuu ku tashaday inuu ninkii wax u qabanayo wax la qabto kow sidii hore ma jirto deegaankuna cid walba u leeyahy deegaanka federaaliga ahee cid walba leh taladiisii halkaasuu dhigay inuu wixii wax u qabanayana maanta wax u qabto haddii alla yidhaahdo ninkii maanta si wanaagsan oo daacadnimo aan ay wax wada qabsadaan sidaa lagu tashaday deegaanku ku tashaday horta saa weeye wafdigiinan isa soo xilqaamay ee qaabkii kaar qaadashadu u socday ka soo howlgalay weliba gaar ahaan adiga ibraahim aadan awqoobe sida mas-uulnimada ah ee inta halkaa ka soo duushay halkaas dabata traafikda ku soo baxday horta aad baan kugu mahadnaqaynaa weliba markaanu nahay baadiye dadkii tuulayaasha ku noolaa xildhibaanada ay ka cabanayaan wax qayb qaadashaa waxa kaarka buuta xildhibaanku ku danaynaya lagama qayb qaadan biyo la-aanta jirta maxaa ka cabanaysaan maxaa hawshiidii ka socon ladahay dee kaarkii waa in laga wada shaqeeya may dhicin adigu soo socoto kaarkaagii baad ka goosata kaarkaagii ayaad ka goosata imaka waxaan u sheegaya odayaasha halkaasuu ka goosta hadeega halkaa insha allahu tacaala horta nin sidaad uga goostay ninka ka qaadan doona horta aduu noqon doonaa halkan sidaa deegaanku iskugu xidhan yahay maxaa dadkan ina kadeeda ba yidhaha kan baa ina xiga lagu siin maayo qaabkaad u shaqaynaysaa baa ruuda kaasaa dadkii deqay horta hadduu tuulan yahay gaar ahaan saba wadaag tuulayaal aan iskaga xidhanaa jira waxa weeye kaan cumar waxa weeye cagadoon waxa weeye tan waxa weeye jabri waayeyna bare waa laba afle aw guuleed aw raalli guul allah midhiyihii aan soo kaxaysan duu jirtay waa miyir halkaa ciddii danahaa eegta
maaha wax buuran eeg waa dadku isku ciddii waxaan ka ololeeyaysay haddii dabatii haddii gudatay waxay haysaa huraysay waxa kalena haybinaysay waa in la helaa qaabka aad u shaqaynayso marka la helo garab iyo gaashaama dadkan waad ka helaysaa waxaan kuu sheegayaa dee waxaan waa daguudo si aad uga shaqaynaysaba looga wada shaqaynayaa waxaa ciddii siday u deeqdaabaa dadkii uu yeelanayaa 18 sannadood dadka waxbaa laga guraayay cidi kumay soo noqon ciddii iyaga cidinoo dhexayn baa layidhi cidi imika deegaanka idiima dhexayso faradeeg adiga iyo ciddii kale kula garabee wax doonaysaba gacan baa la siinayaa mid qoysoo siiniya lagu siin maayee gacan libaax baa wax lagu siinayaa qaabkii halkaa dadku iskugu xidhay culaysna kuma xidhna ciddii laakiin mas-uuliyaddooda qaadaysay baa loo baahan yahay horta ko meeshii ay culimada iyo dadka wanaagsan iyo heelu diinku ay joogeen wey waa meel aada u khayr badan waa meel qalbiga iyo qulubta dadkuba ay ku degayaan markay imaadaan horta ummadduna waa la dhaafay hebel iyo hebel iyo hebel baa isku hayba maanta waxaa adduunyadu jirta interes maxaa danta deegaankeena iyo dadkeenu maxay tahay baa adduunyadu maraysaa horta waa ilaahay mahadii maanta haddaad garateen waxaananu idiin sheegaynaa idima liin maanta haddaanu saanahay haddaanu saanahay lakin waanu idin leenahay waad ku mahadsantihiin tashigaa tashateen oo dantiina aad ka tashateen boqolkiiba boqolaad baad ugu mahadsantihiin waxa wax idin tarayaana annagana wuxuu noo taraya waayo dadkayga innaga wuxuu taray annagana uuna taray ninka dadkayga qurxiyey miyiga jooga annagana uuna qurxiyey laakiin nin magaalo joogee nin miyi jooga wax iskaga cabaa ma jiraan ninkaa xoolaha raacaya ee talada haddaan tala la weydiinayn talan ku noolayne maanta reer magaalo markuu idin yimaado iyagoo ordaya idi dhaafaanaya haddana idi soo dhaafaano looma baahna horta waxaan loo baahanyay malcaamadda waa muhiim xildhibaan horena waan u maqlay way jirtay dhowr jeer oon xildhibaana la socday iyo culimmada la socdayba arrinkaasi baahidaasi way jirtay tabiye la-aantuna dee dadku waa intay ku soc socdaanba biyuhiya waa muhiim anigoo xildhibaanka kusoo dhaweynaya waxaan idinku mahad celinayaa inaad saa iskugu duubnaataan oo dadka kalena idhaahdaan sidaa tuuladaasi tahay aynu ahaano oo ummadda ay tashadaan horta waan idiin mahadnaqayaa dee saaxiibadeena wakti dheer baan safar dheer baan gelaya laakiin anu magaaladan maalintii aan qaxoontiga ahaa meeshii u horreysan seexdanay taariikhdaa bay igu leedahay markii labaad arkay waxay ahayd 7 sano ka hor 2016 iyo caawa warkiina waan hayay intaas sheegteen waxaa idiin sheegaya madrasada aan maraykan baan ka imid waan noqonayaa dhididkeedan ku dhisaya ama doorasho igu sheega ama igu sheega ama igu codeeya ama ha igu codeynina soo ubad wax ka baran maayo yani sadaqada aan go-in bay ka mid tahay qof wax baray ama meel wax ku baranay u sameeyey horta taas iminka idima hadda idin sheegay normal markaa noqdo wallahi dhididkeedan ku dhisay waan dhaartay waan gartay taas waa kow waa loo guddoon labada qol waa idin dhisay waayahay ta biyaha iminka u haraadintiin haddaa 2 cisho biyaha cabtaan helaysan iminka waa okay haddii helayno waxay noqonaysaa hargeysa la hadlo oo cid biyo idin keenta ama 2 cisho haddaa biyaha istaa cabtaan ay iskutaan ka soo noqonayo halkan gudoomiyada telefoonkiisa waan hayaa aan soo wada hadallo hadduu doonto wixii booyada ku baxaysa isaga uu soo diro haddii kalena hargeysa la iska soo diro waayahay intaa waxaa dheer midnimadiina sida cabdiraxmaan sheegay ama waxaan ka imid duni kale adduunyada kale waxay wax ku doorataa waa muxuu qofkani uu qaban karaa uu yahay muxuu sanoo hayaa marka albaxnimada ka mid ah dee cishib waa cimri doorashooyin baa idin soo maray wax badan baa idin soo maray halkan dabab hal meel iska go-dana maaha jasiirad maahay waxay ka mid tahay dalka jumhuuriyadda Soomaaliya soo maaha dalkuna wuxuu leeyahay dowladduna waxay leedahay golayaal golaha aan u ordayo waa meesha dalka wax loogu qaybiyo ee la yidhaahdo marka ayaa ku qaybinaya dee ninka gabiile u dhashay idima yaqaan ninka bari ka yimid idima yaqaan waxaa ku yaqaano qofka adiga deegaan ka soo jeeda ee dadkan ka dhashay qofkaas markaa dadkiisa og yahay waxbarashada baahida ay u qabaan biyaha baahida u qabaan caafimaadka baahida u qabaan degmadan weyn ee Saboonaad eed ka mid tihiin tuulada trainka waxa lagu sheegay
dhowr iyo afartanka magaalo way isku dhow dhow yihiin so waxaa loo samayn karaa inta loo qaybiyo 4 meelood waqooyiga Sabwanaag galbeedka Sabwanaag koonfurta Sabwanaag bariga Sabwanaag baa laga dhisi karaa dugsiga dhexe areadaas dugsiga hoose areada ka sare areadaas xarumaha caafimaadka meel weyn la idinka samayn karo degmada oo kale kuwa magaalooyinka soo xiga sida magaaladan oo kale loo sameeyo waxyaalaha kaalmada degdega ma garanaysaa dalkoo dhan horta mala meel dhiig iyo bangi dhiig iyo waxba toona male caafimaadka dhan Soomaaliya ma ka hooseysa laakiin haddana at least waxa yar u baahantiin degdega ina heshaan waxaan u baahan ku dirayaa dadka deegaanada ka soo jeeda ama wax bartay ama adduunyada jooga ama cid walba oo ma garanaysaa qiimeynaysa nolosha bini'aadamka ama waxaan xasuustaa Mareykan gabadh baa maalin waxay tiri inay yar ardayda ahayd marka waxaan wada galnay shaqad interview deetana waxay mushaarkeeda ka jiri jirtay $5 ayaad u dirtaa waan ku waxaan u diraa dad biyo nadiif aan cabin may garanaynin meesha biyo nadiif ka lagu inaan ka yimid والله ما يقرب مرة تري واحد سوى شو واحد يجي نوكنتو واحد تري واحد سيادتك عم بيها نيفتهرين مرة بيو هنا بقول كل بيت تواتن وأنا ليش بني آدم كا إلهي بقران كل شيء واحد كستون ولا بيو كنوا لي هاي تعاون هرادنتي مرة إلهي ربك هيدين أنا دعايستا يدين كل يدين وناشيستا سيدا سكوت دوغانتي سكوت بنادا تن تولي ماذا جود ديجان كهوري تولمada guud magta la bix laakiin deegaankaaga midnimadiisa iyo horumarkiisa waxa ku xiranta marka may u wada jeestaan hogaaminta laftigeed waxa weeye in qofku dadka sameeyo soo dir gudoomiyuhu dadka ku hogaami midnimo inay mid ahaadaan inay wax wada yeeshaan inay ismaqlaan qofka idin matali doonaa waa inuu taa ku dhaqmo marka waan idin salaamaya dhamaantiin aad baa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa isku soo noqono